kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel baa joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida oo ay gurdoon yihiin dagaalo u dhaxeeya ciidamada macawisleyda ee dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay mise qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waasatee qolada ku dooronaatay isla markaana la wareegtay deegaankii barnaamijka madaxweynaha Hiiraan State Cali Jeete Cusmaan ayaa maanta hogaaminayay ciidamadaasi dagaalka ku qaaday furimaha hore ee dagaalka kooxda Al-Shabaab. dhanka kale waxaad maqli doontaan diyaarada dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen goobo ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Hiiraan. haddaba waa kuwa diyaaradahaasi dagaalka ee duqeymaha culus ka geystay halkaasi isla markaana duqeymahaasi lagu laayay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. balse intaan wararkaasi idiin soo gudbin waxaan ka codsanayaa inaad halkan follow dhaxdaan si aad mar walba u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida kuwooda ugu doorka roona. sidoo kale aad muuqaalka sii share gareysaan la wadaagtaan asxaabtiina lagna aad noo dhahdaan waxay noo tahay dhiirigelin mahadsanidin. aan ku bilownay dagaal u dhaxeeya ciidamada dadka deegaanka ee macawisleyda iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. dagaalka waxaa la sheegayaa inay qaadeen ciidamada dadka deegaanka iyagoona weerar ku qaaday deegaan isku aruursanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. ciidamada dadka deegaanka ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxayna sheegeen inay dagaalka ku qaadeen fariisimaha Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen iyo deegaan isku aruursanayeen isla markaana ay kala wareegeen deegaankii kooxda ay ku sugnaad ayna halkaasi ku dileen Al-Shabaabkii ku sugnaa. ciidamadan waxaa hogaaminayay madaxweynaha Hiiraan State Cali Jeete Cusmaan waxaana muuqatay in Cali Jeete hogaamiyaha reer Hiiraan uu markaan u soo jeestay mar kale ku soo laba kacleeyay furimaha hore ee dagaalka oo in muddo oo muuga. dagaalka waxaa la sheegayaa in qasaarooyin xoog leh ay ka dhasheen balse ay u badan yihiin dhanka kooxda Al-Shabaab oo deegaanka lagala wareegay isla markaana macawisleyda ay soo gaareen kaliya uun dhaawacyo kuwaas oo lagu doobayo goobaha caafimaadka ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale magaalada Buulabarde gobolka Hiiraan. dhanka kale diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa duqeeyo goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanadan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. duqeymaha ayaa la sheegayaa in lagu laayay badankood Al-Shabaabkii halkaasi ku sugnaa iyadoona baraha bulshada ee ciidamada la soo dhigay meedadka Al-Shabaabkii halkaasi lagu laayay. diyaaradaha Turkiga ee Bayraktar isla markaana dunida ka yaabisay taasi oo howlgallo guuleystay ka fulisay wadamo ay ka mid yihiin Turkiga, Ukraine oo Turkiga lacag badan ka siiyay ayaa diyaaradda duqeysay deegaanadaasi. diyaaradan ayaana ka qayb qaadatay dagaalka Ruushka ee ka dhanka ee ka socda dalka Ukraine. diyaaradan oo duqeymo dhowr ah hadda ka hor ka fulisay Soomaaliya markii uu socday wajiga koobaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa muuqatay in mar labaad ay soo laba kacleysay isla markaan howlgalka wajiga labaad la isku fahmay in la adeegsado diyaaradda Bayraktar isla markaana laga maarmo diyaaradihii Mareykanka. diyaaradda Bayraktar ee laga leeyahay dalka Turkiga isla markaana lagu farsameeyay waa diyaarado ay huban tahay halkii ay galaan isla markaana guulo ka keena inta badan. guud ahaanba waa inaga intaa wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaalida dhageystayaal kuwoodii ugu doorka roona uguna xiisaha iyo xamaasadda badna. waxaan ka codsanayaa haddii aad nala soo gaarto dhamaadka muuqaalka inaad followna soo dhahdo si aad mar walba u hesho wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaalida kuwooda ugu doorka roona. share-na dhahdo si aad asxaabtaada ula wadaagto sidoo kalena aad page-ka like noo saarto. ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.